soo dhawaada axmed madoobe wuxuu dowladda federaalka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya uu ku tilmaamay inay yihiin qowleysato wuxuu sheegay aqoonsiga Somaliland buu ka hadlay Puntland iyo Jubalandna waxyaabaha ay soo wadaan ee halista ku ah Soomaaliya ayana uu soo hadal qaaday علشان waxyaabaha inay Soomaaliya kala go'aysa muujinaya ayuu ififaalaheeda sii muujiyay barnaamijka qaybta dambana waxa ku maqli doontaan oo ku daawan doontaan la sacaano waa lagu sii qulqulaya oo madaxdii Soomaalida oo dhan ayaa magaaladii la sacaaneed ku qulqulaysa halkaas safarka taariikhiga ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ku tagayo waxyaabaha halkaas ka dhici doona fariinta la sacaanood laga gudbin doona maalmaha soo socda ayana warbixin baan kaga hayaa muuqaalkan like saar channelkeena subscribe saar magacaygu waa Shukaadan Gulay soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa hadalka Axmed Madoobe madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe dabcan Axmed Madoobe wuxuu maanta ka hadlay fadhiga golaha waa kal fadhiga golaha ee baarlamaanka ee maamulka ee Jubaland isagoo halkaasina khudbad ka jeediyay markaasi dheer oo dhinacyo badan taabanaysa xaaladda dalkan uu kaga hadlayo marka Axmed Madoobe uu ka hadlayay furitaanka kal fadhiga baarlamaanka Jubaland ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay jid halis ah ku socoto علشان wada halis ay dowladda Soomaaliya ku socotaa buu yiri isagoo ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inay markaasi ay nidaamka burburinayaan علشان dowladnimada ay burburinayaan wuxuuna sheegay in dowladnimadii ay markaasi ku koobnaatay Muqdisho oo kaliya oo dowladnimadii Soomaaliya Muqdisho ay dhaafilaadahay wuxuu yiri marka madaxweynaha Jubaland oo kale uu ka hadlay arinta Somaliland wuxuu sheegay in ay xaq u leeyihiin gartooda dadka Somaliland علشان xaq bay u leeyihiin gartooda laakiin ay ka raadinayaan meel fog dabcan oo ay jiri karta buu yiri meel ka dhow علشان reer waqooyiga ama reer Somaliland wuxuu yiri meesha horta waxay raadinayaan bir xaq bay u leeyihiin laakiin meesha ka raadinayaan maahan meel dhow waa meel fog meel ka dhow baa jirta oo ay ka heli karaan waxa ay raadinayaan oo aqoonsiga wuxuuna isagoona sheegay in jidka ay Soomaaliya ku socoto maanta ee halis cusub ka dhalan karaan ama halis cusub ayay ka imaan kartaa buu yiri Axmed Madoobe waxa uu sheegay in hadii aan gacmaha la qaban Xasan Sheekh Maxamuud ay dhici karaan Puntland iyo Jubaland inay qaadaan dhaba ay gaar isugu tashanayaan kana durugsanaan karta markaas halka hadda ay Somaliland laga hadlayo halkaas ay jilay wuxuu yiri علشان Puntland iyo Jubaland halka ay maanta taagan yihiin hadii aan Xasan Sheekh Maxamuud xal la imaan ama gabdhaha id qabata Xasan Sheekh Maxamuud wadanka ka qabata la waayo buu yiri waxa imaan karta buu yiri Jubaland iyo Puntland inay meesha maanta Somaliland joogto meel ka sii daran ay tagaan oo علشان ay fagaadaan madax banaani ku dhawaaqaan wadanku sida ku kala dhaqaaqo taas oo ah hadii ay dhacdo mid Soomaalinimada ama dowladnimadii Soomaaliya halis ku ah Axmed Madoobe marka hadalkiisa soo sii wato wuxuu yiri ama uu sheegay in hadii laga hadli jiray diyaaradda saaran Hargeysa waa diyaaradda markay gudaha Hargeysa tagtibay arki kartay علشان diyaaraddaas dadka waqooyiga ee Somaliland taga waxay sheegay inay tahay diyaaraddii Maxamed Siyaad Barre dowladdiisa Ilaahay u naxariistay duqeymo iyo xasuuq ay ka geysatay waqooyiga sida ay hayagu hadalka u dhigaan marka waxay dhahan waa xasuus jirashana damba aan ku xasuusanay in diyaaraddan ay tahay tii Maxamed Siyaad Barre ugu xasuuqay marka wuxuu yiri hadii diyaaraddaas laga hadli jiray Hargeysa saaran balse ay arkeen in diyaarad drone ahna Soomaaliya oo caalamku si lagu weeraray ciidanka Jubaland ee Ras Kaboori oo ay taasi muujinayso mas'uuliyad darrada hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya sida Axmed Madoobe sheegay علشان leeyahay diyaaradda Hargeysa aragtay tii dowladda Soomaaliya ay Ras Kaboori ku weeraray ee caalamku ugu deeqay in shabaab kula dagaalantana iyadana hal arko go'aanka dekadaha saameynaya ee ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee dhawaan Imaaraadka Carabta ay xiriirka ugu jartay cilaaqaadka iyo Axmed Madoobe ka hadlay wuxuu sheegay inaysan waxba ka bedeli karin xaqiiqada dhulka Jubaland wuxuuna sheegay inay fashilantay dowladnimadii Soomaaliya maamulka hawada ay ku fashilantay siyaasadii ku fashilantay isku haynta ku fashilantay dekadii ku fashilantay waxa sadda ay raadinaysay dekada Kismaayo dekada Boosaaso iyo dekada Barbaraba Imaaraadka ka bacay warka ahna waxa suurtagal ah in ka soo qaaday وسي wata hadalkiisa hadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 20 maalin ku jawaabi waayay ayuu sheegay inay Jubaland ay doorasho bilaaban doonto oo doorashadu aysan ahaan doonin 15 May ka hor la sameyn doono عشان wuxuu sheegay Xasan Sheekh Axmed Madoobe wuxuu leeyahay hadii uu madaxweyne Xasan Sheekh 20 maalin ku jawaabi waayo
ayuu sheegay in ay Jubbaland doorasho bilaabi doonto oo doorashadu aysan ahaan doonin 15 May ee ka horna la sameyn doono. Cashan wuxuu leeyahay xasan wuxuu doorasho qaban waaya xildhibaanada doorashadooda maadaama doorashadii hadda waqtigii doorashada Soomaaliya ay soo dhowdahay oo sanadkan 4 biloodba ka harsanba. marka wuxuu leeyahay haddii dowladda Soomaaliya ay doorashadii shaacin weyday xildhibaanada anagu doorashada toos u bilaabina federaalka xildhibaanada waan soo xulinaa hawsheeda qabsanaynaa xasan marka sugumaynaba iyo mid kordhintiisa Axmed Nuur saas u leeyahay waayahay Axmed Nuur halkaas aan uga soo laabanay hadalkiisa waxaanu markaana aadaynaa dhanka iyo Laascaano magaalada Laascaano waa lagu qulqulayaa waxa halkaasi tagay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya markaas mas'uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya wasiiro taliyaasha ciidamada ugu sareeya hadii aan la taliyaha militariga waa taliyaha ciidanka booliska Asad Diyaano sidoo kale wasiiradii gaashaandhigga amniga arrimaha gudaha iyo sidoo kale mas'uuliyiin aqalabada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan dad fara badan baa halkaas isugu tagay lama soo koobi karo diyaarado kala duwan baa laayo afartii maalin ugu dambeysay halkaas ka degayay ciidamo fara badan baa tagay ciidamadii Puntland baa halkaas tagay BSF iyo ciidankii markaas danab ee Jimcaale hogaaminayay marka waxa la sugayo oo kaliya iminka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud oo maalinta Sabtida la filayo Israa'iil halkaas ka dego waxa ka dhici doona halkaas laba arrimood watan koobaad waa calaamasaarka madaxweynaha maamulkaasi oo xilli hore isaga la doortay Axmed madaxweynaha Firdhiye sidoo kale waxa halkaasi asna looga hadli doonaa fariin lagu gudbin doono caalamkana loo sheegi doono dabcan shirka golaha wasiirada dabcan dowladda Soomaaliya golaha wasiirada ayaa la filayaa halkaasi ka dhaco golaha wasiiraduna fariin ay ku gudbiyaan yiraahdaan dhulka Somaliland la yiraahdo ama dhulkii guumeystay Ingiriisku guumeysan jiray maanta Somaliland la oran jiray haddii caalamku u yaqaano Somaliland intii guumeystay Ingiriisku guumeysan jiray fariintayadu waxa weeyaan bay leedahay waxaanu joognaa magaalo ka mid ah oo dowladda Soomaaliya calankeedu ka babanaya kana taagan yahay waana magaalada Laascaanood oo dhulkaasi Ingiriisku guumeysan jiray Somaliland sheegata ka mid ah marka waxay leedahay Somaliland dadka degan iskuma raacsana inay Soomaaliya ka go'aan oo qayb Soomaaliya taageersan midnimada taageersan baa jira Somaliland dirnimada iyo go'aansadkana ka soo horjeeda fariintaas in halka lagu gudbiyo ayaa iyagana la hadalhaya sida markaas wararka hordhaca aynu helayna sheegayaan halkaasi marka ilaa iyo dhowrka bariya soo socdo waxay ahaan doontaa meesha indhaha Soomaalida ku jeedaan meesha laga hadalhayn doono markaasi waxyaabaha la xiriira siyaasadaha guud ee dalka laga jaangoyn doono ayaa Laascaano noqonaysa caasimadii Muqdisho oo toos dowladii oo guuraysa tagtay marka iyana halkaasi maraysa wixii warar mar walba ka soo kordha halkan la kala socon doontaan waxaan ka codsanayna muuqaalka like saarto channelkana subscribe saartaan nabadgelyo